السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل إيو مقال كله سادو جيتان وأنيقو وزير فرحان عوضو مانتا وحان لفديا و reaction وعن كبحي دونو مقال ير ويسد دوبتي قبل اللي يراهدو كوين عنب سادو تقانان بوا قبر walaasheen ah kuna dhaqan magaalada Nairobi Queen bal maxay dhahday markoona la dhageysta Queen muuqaalka ma kore bal la daawo waxay dhahday in la dhageysto kadib ayaan falcelinteena ka dhiiban doonaa Nairobi joogo waa saqajaamo waxay fuulaan naagaha madowga oo turkaanada naag turkaana kuma shaqeynayso 200 habeen walba oo lagu wasaayaa ee waxaan u mudana wax fiican markaas cid walba shaqaalihii dhan way ka tageen naagii ku shaqeynayeen waxaad tihiin dhusuqlooshin diin ma lihiin nimanka Nairobi joogo naagaha madowga xitaa ku keenaysan 200 sinis saak law mar alaab dhaqay naagtu way iga tagtay idinka ka mas'uul koos waxa barteen in naagaha oo turkaanada jidadka taagan 200 in siisiin habeenka xariistiin habeenka dhan fuushin war dabiirka muqsiimiya naag urayso siilkeeda uraayo ka iska dhaqan yacaamayo malaxda ka socdayna fuushin wax walba idinka u sabab ah naagaha inay naga tagaan idinka u sabab ah maanta anina hool qabtay idinka u sabab ah nimanka Nairobi dhan jooga sas waay gabdha iska ilaali iska baar ay garan way wada xanuunsiin koos naagaha turkaanada wasaqda badan loo najaastay wada fuulaan nacalaani dhar sawjitan Queen maxay dhahay Nairobi jooga waa saqajaamo waxay Queen waxay gashay ama ay jaftay wiilasha ku dhaqan magaalada Nairobi balse gefka ay u geysatay anigu waan beeninayaa ani ahaan wasiirka ahaan waan beeninayaa sababtoo ah wiilasheena Soomaaliyeed iyo gabdhaheena Soomaaliyeed maasha Allah sharaftooda kulli Allah dhowro balse dabcan hal xabbe oo xumaaday waan ugu dhex jiraan dadku ma wada wanaagsano boqolkii qof 100% adi 99% ta inaan fiicanahay aaminsan hadaan 100% dhahin waayo dabcan ma malaynaa hadda wiil Soomaaliyeed inuu baxa oo gabar turkaana wax uu raadsanayo oo ayagaba jismigooda sidoo soo sheeray Ilaahay baa ogyahay markaad garab marayso ay ku garab marayaan mantag ku qabanay hadday dhacdo dabcan in dhacdo laga yaabaa hadday dhacdana waxa u sabab ah oo aan dhihi lahaa gabdhaha naga Soomaaliyeed ayaa u sabab ah waayo waxay sabab ugu yihiin wiilka Soomaaliyeed waxa uu jecel yahay inuu guursado gabar Soomaaliyeed waxa uu jecel yahay nolol macaan leh inuu la qaato gabar Soomaaliyeed balse adiga waxaad samaysay waxaad qaali ka dhigtay guurkaagi waxaad qaali ka dhigtay guriga sharaxaadiisi waxaad dhahday guriga ka qaalisan yahay hal ii kireeyo ama aan dago waxaad dhahday meherkeygii waa intaasoo kilogram oo dahab ah biilkana xagga iska badhig kala walaalay intaas markii laga bixiyo qofka ma ku duban raba ma ku cun raba sida wadkaci may walaalkeeda walaashiisa tahay adna walaalkaaga waa wiil Soomaaliyeed kula diin kula dhaqan ah kula luqad ah maxaad marka u gudubanaysaa aniga garan maayo wiilasha wuxuu guurku u yeeraaday sababaha ugu koowaad oo keenay waa taas mid xigta keenayso dabcan hataa furinka waa batay waxa keenayo waa isfahan daradana ku badnaan waxay ka yimaado dumarka
sii wad toobad waxay dhahdaa hadal kale u dambeeyay ku celiyay baldigiiso waxa u sabab ah hadii xitaa ay aadaan waxa u sabab ah gabar Soomaaliyeed waayo ayada maartay waxeeda dhan qaali ka dhigatay arooskii qaali ka dhigatay gurigii qaali ka dhigatay alaabtii qaali ka dhigatay dahabkii oo maartay meherkii qaali ka dhigatay dahab meher ka baxsanna hal ii gada dhahday طبعا hadii anaga ma aqaan inaan duni kala gadanayno oo yaani magaalo kala gadanayno waa qof bil aadan ma sha Allah oo fiican duniba ka fiican oo magaaladan ka fiican balse in la isku naxariisto rabbi ayaa nafaray adiga hadda marka intaas ka bixiyo oo aan ku dubanihaynin ku cunihaynin oo aan nolol wadaag bisnahay tantan inuu wada jirto inaan wada dhalno ubadkaani kaliya dhaleeyay adiga dhalayo adiga arfaad la soo maray balse hooyo aaba inaad noqoto adna hooyo waa jeceshaana in aaba noqdaan jecelahay maxaad u qaaliyeysay marka wax waliba maxaad u qaaliyeysay wax waliba hadda inaad iska joogto waqtigaada adoon dhalin guriga hooyada ku dhameysato oo ku gabowdo ku tagto ma jeclid waxaad leedahay uwad aan dhalin inaan arkaan raba uwad aan dhal goorma arki doonaa leedahay gabar kasta guriga hooyada joogto waxay leedahay uwad aan dhalani aan dhal hebel goorma arki doonaa ofirso magacyada badankooda hata TikTok lagu soo galo misna lagu soo galo Facebook misna lagu soo galo Snap meel wali lagu soo galo oo hebel lagu leeyahay gabar kasta oo hebel ugu qoran tahay waligeeda aan maartay kuba gorob ah way jiraan gorob ay badan yihiin balse waxa jiro kuba aman la guursan wali gabar iska heblaayo hebel ku qoran inay dhasho ay jeceshahay guurkeeda naqaali ka dhigtay ayadoon wali la guursan waxa isku magac bixisay uniga hadda dhali doono ee hooyista uniga hadda dabal dhali doono in hooyista hatta uniga magaciisa wala sii qortay ay ku soo war damirkaad muqsiimay naag urayso siilkeeda uraayo kaad iska dhaqan iyo caamaayo malaxda ka socdayna fuushid wax walba idinka u sabab naagaha inay naga tagaan idinka u sabab wax walba idinka u sabab wiil Soomaaliyeed in uu aado Turkaan idinka u sabab ya anyway wiilasheena Soomaaliyeed gabdhaheena Soomaaliyeed aad u qiimo badan u sharaf badan u fiican yihiin balse hal xumaad waa ku jiray gabadha hadda ku inanab waxay isku soo qabatay wiil oo dhan tabaan ma maleenayo bal waxa inoo sheegtaa hal su'aal aan weydiinayaa bal waxa inoo sheegtaa hal wiil oo gabar Kenyaati qabo oo Kenya joogo ama Tanzania qabo Tanzania joogo ama Ugandis qabo Uganda joogo hal wiil hata inoo sheeg hal qof oo Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo gabar u dhalatay Afrikaan minta kala qabo isoo ma maleenay inay jirto balse waynu aragnaa gabdho Soomaaliyeed oo iska soo duubay maqaalo Suudaanta Carabta ama Suudaanti kale Ugandis Tanzanian Kenyan iyo gaaladan kale la midka waynu aragnaa dhowr mar hal ma laba ma saddex ma waa muuqaaladoodu waa ku soo sheegareyn karnaa su'aasha hadda meesha taalo waxa weeye idinka waad guursateen Jamaicaanka iyo Kenyaanka iyo wixii la halmaalaba oo gaala ah wali waa idinkaas ku faanahaye maxaad oga dhaxbaxdeen dadkiina Soomaaliyeed hadii aad isleedihiin wiilasha Soomaaliyeed jilaaca saan way aad leedihiin wiilal jareer Soomaaliya way joogaan jareer weyna joogtay intaad guursan lahayd nin gaal oo dalka la ka soo jeedo jareer weyna guursatay oo kula dhaqan kula dal ah kula diin ah xitaa cunigaada haduu weynaado meel kale uusan ka soo dagaalameynin meel kale uusan ku noolayn dalka kula nool dalkaana u dagaalamayo dhimanayo luqadaada iyo dhaqankaaga iyo diintaada wato
aba joogay maxaa jiray raweyne ku diideen oo uga carari haysaan oo aad Jamaicaanka wax ka la halmaalo ka daran ugu ordaysaan ya سيبحمو aniga waxaan leeyahay wiil Soomaaliyeed misna gabar Soomaaliyeed oo hadda waxa sameeyaan inay aad noogu yartahay 100% aan saafinahay ama 99% aan saafinahay haddii meel loo raacana rag iyo dumarka Soomaaliyeed dumarkeena Soomaaliyeed ay ka sharaf xun yihiin raggeena waayaga Jamaicaanka iyo Kenyaanka iyo gaalada raacay waayaga meelaha taagan oo mar waliba darxumo iyo silaaca meelahan la taagan anyway halkaas waxaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka aan ka diyaariyay asna weyn canad oo ay ku jaayfaysanaysa wiilasha Soomaaliyeed هذا اللي دمان دي مقال كاس halka kusoo gabeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan leeyahay hal mid aan ku darsanayaa fadlan haddii aad horey noola joogtay muuqaalka like saar share dheh haddii aad nagu cusub tahay welcome aan ku leeyahay subscribe inoo taabo like share ku sii dar taabashadana waa inoo muhiim mar waliba waxaan jeclaan lahaa inaad garabkeena taagnaato oo aad na caawiso waxaynu nahay walaalada waxaynu u baahanahay caawinaadaada one love. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.